kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta barnaamijkeena waxaan uga hadli doonaa dhacdo cajiib ah oo dhacday sanadii 2017 shimbir lagu arkay daroogo ayadoo wado kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta. Shimbirta ayaa waxaa lagu arkay iyadoo dulduuleysa xero jeel ku yaala magaalada Santos ee ku taala bartamaha dalkaas Argentina. Wararka ayaa sheegaya in saraakiisha ay ogaadeen in shimbirta ay dhabarka ku siday boorso yar oo ay ku jiraan daawooyinka la isku dejiyo, xashiishad iyo waliba cajalad kombiyuutar. Qaabkan tahriibinta ayaa horey looga hortagay waxaana ku socda baaritaan sida uu ku waramayo wargeyska Clarín dalkaasi ka soo baxa. Booliiska wuxuu daawacay sawirka shimbir dhimatay oo dhabarka uu kaga xiran yahay boorso yar oo ay ku jiraan kiniini oo ah kuwa la isku dejiyo ee Rivotril, xashiishad uu miisaankeedu gaarayo 7.5 garam iyo waliba cajalad kombiyuutar. Adeegga jeelasha Argentina ayaa ka digay 2013 in dadka ka shaqeysta maandooriyaha ay maalintii 10 ilaa 15 jeer daroogo ku qaadaan shimbiraha. 3 qof ayaa loo xiray halka 15 qof loo qabtay kadib baaritaan la sameeyay sida uu sheegay wargeyska Clarín. Bilowgii sanadkii 2017 shimbir dhabarka ku sitay 178 kiniini oo daroogo ah ayaa lagu qabtay meel u dhow xuduudda oo dalka Kuwait la leeyahay wadanka Ciraaq.